su-aashii labaad ayaan rabaa iminkana inaan sii bilaabo oo markaasi dhalinyarada weydiiyo su-aashani toddobaadkan waxay ku saabsan tahay markaas iyo tan waxyaabaha guurkay ku saabsan tahay su-aashani dhalinyaraday ku saabsan tahay su-aashaas jawaabteeda haddaan ka jawaabo waxay ila tahay horta dhibkan haysta annaga waa soo qaxnay dad soo qaxaanahnay hablaheenna markay waddankan imaadaan dhibaatooyin badan bay la kulmaan dhanka familkooda inkastoo freedom wax la yidhaahda jiro mideeda kale nimanka dibadda ku imaada hableen waxay u aadayaan wax la yidhahda interest iimaan la'aan inay haysa aaminsanahay iimaan la'aan ingiriis waa diiday iimaan la'aan inay hayso because ilaahay wuxuu kugu talagalo ninkan ama wax haysto ama wax uu haysan asigaa ku risaaqayo cilada inamada laakiin waxay u raadiyaan iyagana inay ku dhoofaan ee lacag soo shaqeeyaan wax kale ma jiro problem kale ma jiro iimaan la'aan interest maana iimaan la'aan iimaanka waa inaa qabtaa magacaygu waa ibraahim maxamed xasan dhallinyarada kuwa qurbaha ku sugan iyo kuwa kenya ku sugan kenyaan ka hadlayna hadda tan qurbahan waa aadaya waa isku mid horta kuwa kenya ku sugan waxaa weeye maaragtay isma aaminsana gabdhaha wiilasha isma aaminsana sababta la soo gursan lahayd isma aaminsana waxay isku aamin laayihiin gabdhahan maaragtay shaqo fiican ma haystaan kulle waa ogeed waagii barabariya laga shaqaysan jiray baryahan horta ma jirta waxaa weeye gabadha ma aaminsana wiil halkaan joogo ma aaminsana gabadha ma aaminsano ma aaminsano saas daraaddeed marka waa la shukaan sidaa lisma aaminsano tan waxaan aadayaa qurbahan aadayaa qurbaha gabdhaha waxay soo wacdaan wiil afrika joogo ay soo wacdaan ma garatay waxay ka cararayaan wiilka halkaas joogo hadduu maartay ma gursano lacag buu leeyahay ma gursanayo iyada waxay rabtaa wiil cabiisato dumarku waxaa in badan waxay rabaan wiil ayada maartay gacanteeda ku jiro qofka haddii afrika ka kaxis xagga ay geyso gacanteeda ku jira ma garatay berito hadduu gabar kale u shukaansado way xiri kartaa ama dalkaaga soo dhoofin kartaa horta gabdhaha saas dhibkaas haysto iyo wiilasha ayagana sababtay guursan laayihiin gabdhihii dhowr qof ay la wadaa gabadha dumarkood waxay barteen maamaha oo fiicneen ay barteen gabdhaha maamada waxaa waaye gabar kun bay shukaanstaayo mid bay kala baxday dhahan gabdhaha nimankii baan waxaan ka hadlaynaa nimankii hablihii halkan jooga waa lagu karlaayayo qof dabadda ra'an bay raadinayaan sababta ay u raadanayaan waayo gabadha halkan joogto laba qaawan isma xambaarta baa ninku muxuu ka helayaa marka waxaan rabaa saan hablaha ugu sharaxdayna ninka ugu sharaxay okay ninku wuxuu ka helayaa markuu xagga tago inay way caawinaysaa waxay ka dhigaysaa qof maaragtay Mareykaani ay ka dhigaysaa sharci buu maaragtay bay u raadanaysaa xagga shaqo ka raadsanaa horumar buu gaarayaa reerkiisii ciidihiisa inuu shaqeeyo dhoof buu galay laakiin labada meelba waa la soo baahan yahay waxaa weeye kalsooni darre ayaa jirto dumarka halkan jooga ragga halkan jooga kuma kalsoona ragga halkan joogana dumarka halkan jooga kuma kalsoona wax cudur la yiraahdo buufisna waa lagu wada jiraa rag iyo dumarba marka dumarku waxay jecel yihiin nimanka halkaa ka yimaada inay guursadaan oo dibada ay ku tagaan ragga halkan joogana waxay jecel yihiin ayagana sidoo kale xabadda meeshaan micnaha xoogaa waxaa la leeyahay sideedaba hoos uga dhig midda kaleetaa micnaha waxaa waaye maraykanka goynaysa camal ma fahantay maraykankaa lagu haystaa qof walbo marka sidaa darteeda waxaan leeyahay guurkii wuxuu noqday interest ma garanaysaa sidaa darteeda gabadhii halkaa ka timaado oo wiil halkan ka qaadaysa danaheedeeda ugu qaadaysaa way badan yihiin horta halkan way dhoban yihiin isliiba naagaha xagga ka yimaada xagga ragga waxay u soo waxaan ka hadlayaa dadka islii wada jooga dhibaatada jirtaa waxaa waaye laba qaawan isma qaada shiidkaa jira adduunka shiid baa ka jira waxaa weeye ma taqaanaa guurkii oo dhanba hadda jira interest buu noqday nimanka halkan joogaanna naagu halkan yimaado interest bay ku qabaan waxay isleeyahay amay midka jeeb kuusan wax ku dhiibto mise inay ku qaado labadaa baa loo dhintaa inanta xagga ka timidne oo inta timid ma rabto ninka inay qaado waxay rabtaa inay ka bacjilaysato 2 bilood ku joogto iska laawato ninka maxaa la yidhaahdaa ninka xagga ka yimidne dee wuxuu rabaa inuu gabadha ku meel gaaro 100 baan aragnay gabdha intay guursadeen 2 bilood qabay ku meel gaaro dhinaayaa waan ku furay gebigaadaba warqadda halkaa u saara waxaa laysku raadiyo muhiimadda ugu wacan waxa weeye waa interest qofka xagga inta joogan wuxuu rabaa in la geeyo xagga ka xagga ka yimidna wuxuu rabaa inuu halkan ku qabowsado dee markuu dhaniis bugso iska laabto dawaka horta bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay iimaanka ha inoo sugo anigu waxaan u arkahayaa iimaankii oo jiis noqdo naafoobay marka
horta iimaanka naafogaallaha inoo toosiyo waxaana maqli jiray oo anigu beeyaddii aan ku soo koray shimbirba shimbirkiisu la duulaa oo horta gabdhaha yaryarka ah kufkoodu waa wiilka yarka ah oo habiga iyo farxadda iyo da'daba ninka la qaybsanaya waa ninka iyada la jaanqaadaya iyada leeg dhaqaale la'aan ayaan looga toorin qof walba isagoo qaawan dhashanteed wayga waano islaanta dibadda ka timidna haddee waxaan leeyahay walaalay da'daada raadso oo inamada yarkaa shaqiiqinaysa ka kala daa qoorsagaalada ka kala daa baan leeyahay qoorsagaaradaad ku haysa ilmaha yaryarkaa ka kala yaree walaalay aqli ku daro odaygaagii hore u samir oo yacni ma garanaysaa meeshii markoo aad yarayd aad ku qubaysatay ku qalalsan gabarta weyna leeyahay soo maaha waxaa yaryarna waxaan leeyahay wiilka yaree da'diinna dee kaa la jaanqaada una samra dhaqaalna ilaahay ka suga soomaada garan inaan yaroo ilmo yaroo isaga da'diisa gacanta haysa wax qaaliya weeye soomaad garanne marka wiilashana taasaan leeyahay oo waxaan leeyahay gabdhaha dee waxaad kaga carreen xoogaa bal dabaldabciya ilaa habaraad raadsanaysaan waxbaa laydinku ogyahay marka horta tanayta maaragtaa dalka joogto waxaa weeyaane iyadoo waxaad arkaysaa shiisho cabbi maaragtaa kula ag fadhido qaab ahaan si oo maaragtaa u labisneen sida gabdhihii muslimiinta u labisneen marna aday kula sheekaysane boqolna way la sheekaysane adoo maaragtaa meel sare ay kuu maraysaa maaragtaa dhexda kaaga tegay marka ma habboonta inay dhexda kaaga tagto adoo maaragtaa intaasay tusan soo sheekaysanayseen marka waxaan leeyahay gabdhaha qurbaad maadaama ay rabaan waan rabaa haddii ay raasanayo maxaa ku diidaa ما مقعيق وحاوي ويلك أمسنا جعلك لؤي igu soo celi ويلك أمسنا جعلك لؤي wiilka aaminsan in jacaylka looba ooyo لو أويه أو اللي ما يسعني ها كاوا مقعيق سؤال شو وحاو هذا جوابت هذا أمر هذه كويس بدك إيه ماذا horto markay wiilashan yar yar oo meeshan u mada wax yar oo qootay raadina ma garad gabdhii meeshan oo lisbarti oo meeshan isla joogin waxay rabaan xaflad weyn in loo dhigo oo dahab loo gado oo wax loo hagaajiyo waxa kulina waxay ka rabaan wiilka yar hadee waxa ma yawaado markii waxa laga yaabaa inuu jaamacad ka soo baxayo markii mustaqbal bilaabay asagana markii wax yar oo qooto waa rabaa laakiin gabadha qooto ma rabto marka hadda wiilashu waxa fiican inay maamuudinka qootada la qabsadaan oo ayaga marka kharashka يا ما فهمت يعني ما واحد ربطه واحد لهذا هلكا هلكا سي وضم صح لهذا إنما ده هجوجي واحد قبلها يار يوليش يار رحت waxa ay sahiri la yihiin waa gabdhihii oo raba in xaflad loo hagaajiyo oo maartay dahab loo gado oo guri weyn loo kireeyo oo waxyaalaha wiilashana hade maadaama ay dhalinyar had soo kobci ay yihiin waxa raba nuxurkeedina taabti ha marka waa dhaqaale la'aan waay wax kulli hadaan ku soo qoro